بسم الله الرحمن الرحيم halkaa naga daawanaysaan waa talooyinka shacabka Soomaaliyeed ku soo dhawaada meel kasto adduunka aad ku nooshihiin 14 Oktoobar inaan ka jawaabno waa muhiim madaxweynaha wuxuu qaatay fikir fiican maamul goboleedyada waxaa la rabaa xoog maal waxay ciidan hayaan waxay hubaan in al-shabaab aan ka taqalusno maamulada dhidibada loo aaso madaxweynaha aad u jeedin maamul goboleed caqabad kuma ahan waxaad ogtihiin shacabka Soomaaliyeed waxaana gumaaday al-shabaab waa dad majority dad iyo dunyane qatar ku ah ummadda Soomaaliyeed indhihiina fura labada gole ee baarlamaanka waxaan aaminsanahay inay dalkan ay dadkooda waxay u doorteen inay nabad u horseedaan labada gole ee baarlamaanka waxaan aaminsanahay inay tan ay aad u qabaan marka shacabka Soomaaliyeed waxaana la gudboon inaan furinta hore ciidanka aan u qidmayno raashin biyo iyo xataa dharcad kala loo sii baahan yahay shaqayso dadka aan sisijina dagaalkan waa afar geesood maamulka xataa ka soo bilaabayo dhinaca uu joogay ku dhow yihiin jugta aga soo bilaabay ummadda Soomaaliyeed hadda tihiin aan isku duubano gacmana wada jir ayay wax ku gooyaan waa inaan ka jawaabno dadkan dad iyo dunya ayay qatar ku yihiin gaar ahaan waxaan fariin u dirayaa dadka baadiyaha degan nagala qayb qaata shaqooyin ayaa idin la sii doonaa haddaan talooyinka shacabka Soomaaliyeed nahay waxaan ku cadaadin doonaa dawladda inaan shaqo badan idinkaga qaadno beeraleyda dadka heer baadiyaha ah insha Allah ta'ala laakiin waa in aan shaqeynaa insha Allah aadan soo sheegtiin idinkoona dhibaato idin la geysan si aan u hanana dalkayna al-shabaab waxa waaye wuxuu ku dhaafay mala saacad u gatay fidaad u gashay halka halo leesaysay badarkii ku soo go'o uu ka qaatay intuu taleefankaas wuxuu ku leeyahay waa iska kaadira taasna ummadda Soomaaliyeed ma qabato kursiga aad ku fadhida maanta ayuu qatar ku yahay xataa wax kale iska dhaafay dad iyo dunya ayuu qatar ku yahay ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha wuxuu qaatay go'aan geesinimo leh go'aankaas waa inaan la qaadano waa inaan ka jawaabno salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh